لذلك علماء وحيد آذان حق استقامة مركي كهل ليانا أفرتن آيات سورة الغاشية وقدم بيسا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفرتا آيات علماء كليهين والصفات لقد دونا يقفك مؤمنك صفات القرآن كان لغو شيغي هدي حيوان لغو شيغي هدي بور لغو شيغي هدي سما لغو شيغي مقصودك سما ماها مقصودك waxa loo jeedaa أيها البشر بالغليهي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قيل ما في ريانا بإلهيري وصدانو أبورنا ما إيغانا كعبر قاتانا صفة وقيلوا ليهي ومحي وتواضع دول إصدق قيلوا ما كبر ما لقيلوا maalmadan baad biyaha ka ilaalinaysaa oo kula qadaya adigu biyo la'aan ma noolaan karaysid laakiin isagoo 15 maalmood waxa laga yaabaa geelu bilaa biyo inuu kula socdo oo ku adeeco waliba adiga ma aragtaan amarkaagana uu qaato awr dhan baad arkaysaa ayu ilmo yar hoggaanka intuu qabto buu fadhiisanaya oo fadhiisan oo kicinaya oo kacaya rarku saaraya oo qaadaya وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم مركز عليسك أي نيقاد سابا إلى حي عليسك ريرها كجوريا وسفينة الصحراء بعربت إلى دنجيلا واحد بني آدمكم أي سميان أردن سنعذا إلهي أودك من مايان أحنا دونك بني آدمكم أي سميان بلا بيه مصعون كران بلا بترول مصعون كران بلا سواقنا ما سocon karaan laakiin awrka adiga fuulaya deedna uu ku kaxayn baabuurka adiga weecin laakiin awrku jarka isaga ka weecan dameerka maada weecin mise isaga weecanaya markaas la caayo leeyahay war dameerkan cadhoon maayo ka tagi maayo oo ku khidmaynaya waad soo kaxaynaysaa isagoo imika dhaankii ka yimid oo laga keenay dixdii oo qarbidadii laga dhaadhiciyay baa haddana qarbidka la saaraya waan daalimu oranaya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun ilahi ba ku sakhiri tabaraka wa ta'ala marka lagu leeyahay afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat wa inaad eegta sifaadkooga wa inaad eegta sifada ilaahay ku abuurgeela waa maxay in nirigta lagu sii deynaya hashi markay godlato ayaa nirigta laga qabanaya dadna ninka geeljiru gorofkiiba la hoos imanaya ciyaalkiisiba caanaha uga maalaya iyada ilmaheegiina halkan uu eegaya oo ololaya ku soo eegaya yaa ku sakhare marka harraati kaliya ka soo hari meeside laakiin waa taskhiir ilaahay ba ku sakhiray marka ilaaha ku sakhiray adiguna ha iloobin baa lagu leeyahay ina aadanow geelu marka tawaadu' buu leeyahay tawaadu' dul isdig adiguna muuminow waa inaad ahaataa qof hayina oo layyin qof dabacsan oo jilicsan oo kibir aan lahayn waa inaad ahaataa oo mutawaadica oo tawaadu' badan waa sifaadka marka ilaahay qofka muuminka uu ku jeclaado xagga tawaaducana waxa lagu leeyahay geela kaga dayo wa ila samaa'i kayfa rufi'at xagga himada saraysana waa inaad samada eegto oo samada aad ku dayataa samada wax walba hadii lagu gano ma la gaari karaa lama gaari karo muuminka hamigiisu waa inuu sareeyaa haday aakhira noqotana waa inaad ilaahay jannatul firdaws aad weydiisataa haday adduunyo noqotana adduunyada laftigeega gacmaha laabo oo seexo oo bini aadanka gacanta hoos dhiga laguma leh waa inaad shaqaysataa waa inaad xoogsataa oo himadaadu ay noqotaa inaad naftaada kaliya aad wax tarine ummadda muslimiinta oo dhan baa laga rabaa inaad wax tar u yeelato وإلى الجبال كيف نصبت بورها سدا دكا لوغو قطبيي اگ دبايل با ايمن بورتا ما دقاقيس دوفان با دحي بورتا ما دقاقيس كليل با ايمن بورتا ما دقاقيس ابار با دحي بورتا وا بور وين الحق استقامه كسغنانتا الهي امركيسا اد كسغنانيسو ee diinta islaamka aad ku sugnaanaysid waa inaad yeelataa sifada buurta waa inaad yeelataa sifada warqadaha hayeelan warqadaha sifaadkoogu waa cinkee warqada halka taala dabeeshu xaga markay ka timaadana gidaarka bay ku legtaa xaga bariga markay ka timaadana gidaarka kale ku legtaa dabeeshu inay ku qaadqaadin immaha noqonina buu nabigu immaha
kama aragtaan ay yiraahdo dadkan anigu aan la socdaa ka qof walba yiraahdo anigu macaagaanahay ha noqonina buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka odhanaya dadku haday wanaagsanaadaan waan wanaagsanaanaynaa dadku haday xumaadaan dadka umma ka mid noqonaynaa ha noqonina buu nabigu kaas walaakin watanu anfusakum ba nabigu naftiina wadada xaqa ku suga buu nabigu leeyahay diinta ilaahay qabsada oo diinta ilaahay istiqaamo ku yeesha dadku haday wanaagsanaadaan loo wanaagsanaada buu nabigu dadku haday xumaadaan ha xumaanina buu rasuulku yiri Soomaalida tiraada dameeridaan raacday haska raacin cid walba dhangaagaalaha noqon kalba dhinac lagaga dhifto ma aragtaanay wararka adduunyada iyo wararka siyaasiyiinta dameerka magaalooyinka dhexdeeda biyaha lagu dhaansado labadaba laga xidhaa maxaa looga xidhaa inuu xagga daymoon labadaas laga xidhaa maxaa looga xidhaa hadeer hortaada eeg weeyaan waayo haddii labadan laga dayn lahaa labadan dhinac laga xidhay haddii laga dayn lahaa baabuurka xagga ka soo socdo arki lahaa uu ka didi lahaa baa la yidhi lidaalika waa loo fikiro labadaaba laga xidhay adiguna markay noqoto diintaada islaamka inaad ku sugnaato labada dhinac ka xidho waxaad hor hadaf ka dhiganaysaa ilaahay jalla wa ala inaad raali gelisid ilaahay inaad adeecdid oo deegtid kitaabka ilaahay jalla wa ala munazzalka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam mutahharada marka wa ila aljibali kayfa nusibat buur waa inaad noqotaa buur xagga istiqaamada wa ila al-ardi kayfa sudihat sifada dhulkuna waa sifadee baa leeyo dhulku wuxuu leeyahay adkaysi buu leeyahay adkayso adiguna biyo kulul baa lagu shubi oran maayo waa la qodi oran maayo wasakhda adduunka oo dhan baa inta dhulka la qodo lagu shuba oran maayo baytalmay baad ka dhigatay oo saxaradaada iyo kaadidaada ayuu ku qariyaa oran maayo waliba sifada dhulka uu leeyahay taxamul kaliya maaha wixii isaga soo galaba dhulku uu badilaa baa leeyahay afartaas sifa quraanka ilaahay markuu kaga warramayo suuratul ghaashiya maaha mawduuca quraanku sheegay mawduuc sahal hamoodin sifaad baa ku jira meesha tusaalooyin baa lagu leeyahay ka qaado xaga tawaaducana geela kaga dayo xaga culuwal himmadaadu inay saraysana samada eego samada la gaari kari maayo waa inaad adiguna xagga sare waa inaad ku xidhnaataa xagga sare dhulka ku xidhnaan waxa dhulka ka dhacaya iyo hadallada dadka dhulka jooga ay leeyihiin inay ku saameyn xagga samada waxa lagu tilmaamay waa maxay warka ilaahay azza wa jalla iyo warka nabi maxamed ay ku sheegeen labada war ha ku saameeyaan wixii kale oo dhan ayuuna ku saameyn khabarka ilaahay khabarka nabigu ha ku saameeyaan khabarka ayuuna ku saameyn xagga istiqaamadana buurta eego buurtu ma dhaqaaqdo ha dhaqaaqin adiguna dabayla adduunka dusheeda kugu soo maraya abaar baa iman ha dhaqaaqin diintaada ku sugnow afooyin baa imanaya ha dhaqaaqina diintaada ku sugnow fasaad baa imanaya khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman khatara weeyaan aalaadkan aan gacmaha ku sidano waa sayf duu xadayn weeyaan waa sayf laba aflaya xagga hadaad u qaadatana way ku goynaysaa xagga khayrka hadaad u qaadatana adaa ku goynaya fasaadkii awal meelaha loo samaystay la tagi jiray imika waxa laga dhigay keli qof walba gacanta loo suray marka waa zaman alfitan oo nabigu soo sheegay yiri calayhi salaatu wasalaam baaduru bil a'mal amalka saaliha u degdega war amalka wanaagsan u degdega buu nabigu yiri satakunu fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim habeenka saacadda ka dambaysa sida u sii kala mugdi badan tahay ayaa zamanka uu ka dambeeyana fitanta ayaa sii ziyaadi doonta buu rasuulku yiri waxa iman doonta buu nabigu yiri inuu ninku waa bariisto inuu galabaysto isagoo iimaan qaba waaguna u bariyay isagoo gaaloobay saaka waxa uu ku jiray a'maal ilaahay u dhaweynaysa galabtiina waxaad ku arkaysaa isagoo ku jira a'maasha dhanida lagu gaaloobayay yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran wa bi'ada wayaan subaxdii khayr buu ka shaqeynay oo ku aragtay galabtana macaasiya shar buu ku dhex jiraa masaas
saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxay eegi jireen baa la yidhi qofku marka uu dhimanaya wuxuu ku khaatimaystay eegi jireen baa la yidhi ma meel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay marka gallinka hore muumin buu ahaa gallinka dambe siduu gaal u noqonayaa gallinka dambe gallinka hore khayr baad ku aragtay gallinka dambena waxaad ku arkaysaa baa laga yaabaa acmaashii dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu nebigu yidhi diintii sii dhannayd wuxuu dhaafsanayaa dheef yaroo adduunyada lacag yar